marmarka qaar waxaad u baahan tahay jawi ka duwan kaad markaasi ku jirto. tusaale ahaan haddii aad isku dhacdaan xaaskaaga, carruurtaada ama jacaylkaagaba amase qaraabadaadaba, tani waa qaacido cilmi nafsi ah. waxa ayna odhanaysaa had iyo goor ku dadaal jawigaagu inuu ahaado mid degan, iskana ilaali waxyaabaha cadhada iyo stresska ku keeni kara. indhahaagu inay helaan meelo doog leh ama meelaha dalxiiska loo tago sida badaha oo kale waxay ka qayb qaadanayaan naftaadu inay degto, isla mar ahaantaasina ay hesho farxad, raaxana aad dareento. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ina leeyahay fasiiruu fil ardi, oo taasi oo micnaheedu yahay dhulka socda. taasi oo inoo sheegaysa in dalxiisku uu ka qayb qaato caafimaadka iyo farxadda qofka. ku dadaal inay naftaada ahaato mid degan, isla mar ahaantaasina aad joogto meel degan. taasi waxay kaa saacidaysaa inaad noqoto qof caafimaad qaba. iskuna xidh allah subxaanahu wa tacaala. sidoo kale masaajidda iyo meelaha cibaadada ayaa ah meelo dadka ay ka helaan farxad iyo reynreyn iyo sidoo kale xasiloonida nafta.